28 sano kadib waxaa maanta xaraga laga jaray xafiiska gaadiidka cirka dhulka ee degmada Buulaburte ee gobolkan Hiiraan waxaana ka soo qayb galay xarag jarka xafiiskani maamulka degmada Buulaburte qeybihiisa kala duwan waxaana xaraga si toos ah kaga jaray gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Duuraw ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa gaadiidka cirka dhulka ee degmada Buulaburte Maxamed Amiin Cabdullaahi Axmed Abaaja wuxuuna faahfaahin ka bixiyay waxa uu xafiiskiisa shacabka degmada Buulaburte u qaban doono maamulka arrimaha bulshada inta ka soo qayb gashay xafladan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin shaqada la idmadane si wanaagsan inaa ugu soo baxa sidaas ma aad u jeclahay ilaahayna ay ugu garab galo arintaas sidoo kale waxaa furitaanka xafiiska gaadiidka cirka dhulka ee degmada Buulaburte ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee degmada Buulaburte Ismaan Geedi Cilmi isku duwaha gaadiidka cirka dhulka ee degmada Buulaburte maanta nasiib wuxuu u yeeshay inaan xariga ka jarno ilaa dhowr iyo 20 sano bacdi degmada Buulaburte uu ka howlgalo marka waxaan leenahay aad iyo aad waa wixii la rabay waa wixii la sugayay waa wixii loo baahnay marka waxaan leenahay xafiis kasto ee wasaaraddu leedahay sidaas oo kale waa in degmada laga helaa waa inay howlgalaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo arrinkeenu halkaas uu ku wajahan yahay ugu dambeyn waxaa furitaanka xafiiskani soo dhaweeyay isla markaana bogaadiyay gudoomiyaha degmada Buulaburte Cabdicasiis Cabdullaahi Cabdi Duuraw oo sheegay inay tahay wax lagu farxo ayna qayb ka tahay arintani dib u dhiska degmada Buulaburte tahay maalinba qayb maalinba xubin in la dhiso waaye marka waxa maanta guul noo ah oo sharaf noo ah taariikh noo ah in uu furmo xafiiska gaadiidka dadweynaha degmada Buulaburte ama xafiiska gaadiidka cirka dhulka ee degmada Buulaburte mas'uulka la yiraahdo Amiin oo isku duwaa gaadiidka cirka dhulka wasaaraddu noo soo magacawday annaguna aan bal ku soo gareeyay markii hore oo aan dalbanay in loo magacaabo sidaa daraadeed inta ay qusayso waxaan faraynaa sida hadda ku cad meeshan oo fagaaraha ah in xafiiskaasi la shaqeeyo xafiisyada ay qusayso dhan ay la shaqeeyaan qaasatan gaadiidleyda maanta laga bilaabo mas'uulkaasi amarkiisa ayaa ka shaqeynaya xagga gaadiidka degmada Buulaburte amnigu waa nala joogaa taliye booliska wuu joogaa gudoomiyaha arrimaha bulshada wuu joogaa gudoomiyaha amniga wuu joogaa duqii magaalada wuu joogaa wax maqal ma laha maamulka intiisa badan waxaan faraynaa marka in qaasatan ragga amniga ku shaqada leh ay ninkaas codkiisa tixgeliyaan la shaqeeyaan gaadiidkii uu ka shakiyo ama awaamirta qaado waayo ay sharciga waafajaan u soo qabtaan oo la shaqeeyaan gaadiidleyduna waa in awaamirtiisa u hoggaansamaan ninkaas wuxuu maamuli doonaa oo kala agaasimi doonaa gaadiidka guud ahaan gaar ahaan kuwa fudud wadana uu qaban doonaa wasteejooyinka waa si nidaam oo kala dambeyn leh oo tooka ah oo xaq ah inay u shaqeeyaan gaadiid aanan la aqoonsanayn ama aan la ogeyn magaalada hadduu arkaan asaa ka soo jawaabayo waa in talaab laga qaadaa burburkii dawladii dhexe kadib ma jirin xafiis toos ah ay gaadiidleyda degmada Buulaburte la macaamilaan ama iyaguba la xisaabtamo Cabdisalaan Maxamed Ibraahin Somali News Buulaburte